asalaamu calaykum soo dhowow daawade afur wanaagsan haddii aad ka mid ahayd dadkii soonnaa maalinka fadliga badan ee carafa soo qaado koobkaaga shaaha kuna raaxayso muuqaalkan kooban oo aan ku sharxayo filim jayniis ah oo lagu magacaabo kungufu jungle intaanan sharxaada u gudagelin bal iga guddoon hambalyo hordhaca oo ku saabsan ciidul adxa ciid mubaarak haddaba aan gudagelno bilowga filimka muuqaalka koowaad ee filimka waxaa inoo soo muuqanaya nin ay ka muuqato dhaawac badan waxa uu soo gelayaa xarun boolis ah waxaa lagu magacaabaa mo taliyaha goobta jooga waxa uu weydiinayaa waxa ku dhacay balse mo waxa uu ugu jawaabayaa in uu qof si kama u dilay waxa uu sheegayaa inay isdagaaleen koox rabtay inay isaga disho balse isagu uu mid ka mid ah si kama u dilay taasi oo keentay inuu yimaado xarunta booliska halkii uu baxsan lahaa isaga oo weliba awood u lahaa inuu baxsado 3 sano kadib dhacdada mo oo xabsiga ku jiro muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa wada ay ka jirto saxmad badan maadaama goobta uu ka dhacay shil wax yar kadib waxaa goobta soo gaaraya dambi baarad lagu magacaabo log waxaa imaanaysaa goobtan oo uu ka dhacay dil si kiiskan iyadu ay u baarto markii ay timaado goobta waxay ogaanaysaa in shakhsiga la dilo uu yahay feeryahan aad u yaqaanay feerka intaana waxaa sii dheer in meydkiisa ay ku yaalaan dhaawacyo badan taasi oo keentay in dambi baaradii ay sheegto in dilka ka hor feeryahankani aad loo garaacay halka dhakhtarkiina uu sheegay in dilkan uu ka dambeyn karo keliya dilaa halis ah maadaama ninka meydka uusan siinin wax fursada uu isku difaaco intii uu dilayay isla goobtii uu ka dhacay dilka dilaagu waxa uu meesha uga tegayaa aalad yar oo u eg shimbir dhinaca kale markaan waxaan aragnaa mo oo weli ku jiro xabsiga isagoo ah shakhsiga ugu degan gudaha xabsiga maadaama dhowr jeer ay dadaansadeen maxaabiisi kale balse isagu mar walba uu kontaroolo naftiisa mo markaan isaga oo daawanaya tv-ga waxaa dareenkiisa soo jiidanaya hadalka wariyaha oo sheegayay dilkii feeryahanka isagoo aad moodaba inuu yaqaano qofkii dilka geystay ma waxa uu soo cararayaa ilaaliyaashii xabsiga wuxuu ka xusanayaa in loo waco dambi baaradii ama xitaa maamulka xabsiga isagoo u sii raaciyay inuu haayo macluumaad ku saabsan dilkii feeryahanka balse ilaaliyihii xabsiga wuuba ka jejeesayaa intaa kadib mo wuu kasoo tagayaa isagoo aysan u furnayn waddo kale balse waxa uu ka fikirayaa inuu dagaal sameeyo si arrinta uu usoo galo maamulka xabsiga ugu dambeynna waxa uu la dagaalamayaa qayb ka mid a maxaabiista intaa kadibna waxa uu dilayaa mid kasta oo la dagaalama ilaa markii dambe ay yimaadaan waardiyaashii xabsiga waxyar kadib maamulkii xabsigu waxa uu dareenkiisa u weecinayaa dhanka mo maadaama uu noqday shakhsi saameyn ku leh gudaha xabsiga ilaa ugu dambeyn ay ugu yeereen dambi baaradii log si ay ula kulanto cabaar kadib markaan waxaan aragnaa log oo waraysi iyo su-aalo weydiinaysa mo si ay ugu hesho xog ku filan dilkii feeryahanka mo waxa uu sheegayaa in feeryahanka ay ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow dilaaganna uusan keliya ku kaaftoomi doonin hal dil oo keliya balse uu dili doono feeryahanada kale ee ugu khatarsan ciyaarta kaanfuuga markii ay halahaas maqashay waxay weydiinaysaa siduu uu ku ogaaday macluumaadkaas laakiin mo uu ka diidayaa inuu bixiyo jawaabtaas taasi oo keentay log inay goobta isaga kacdo balse waxa uu u sheegayaa in xorriyadiisa uu helo kadibna uu la shaqayn doono iyada balse log waxay isku qancinaysaa in mo muhiimadiisu ay tahay keliya siduu xabsiga uga bixi lahaa sidaa darteedna log waxay ka baxaysaa qolka mo aad moodo inuu weli dhiiran yahay waxa uu ka daba tuurayaa magacyo 7 shakhsi oo caan ah isagoo uu u sheegaya in mid ka mid a uu noqon doono hadafka xiga ee dilaaga wuxuuna u sii sheegayaa in 7dan qofood uu si caadiya u yaqaano maadaama ay hore isugula dagaalameen log oo jahwareer ka qaaday hadalkiisa waxay gacanyaraheeda ka codsanaysaa in xog uu ugu keeno 7 magac oo uu sheegay mo dhinaca kale dilaaga markaan waxa uu isku diyaarinayaa howlgalkiisii ama dilkiisii xigay waxa uu derbiga qolkiisa ku qorayaa magac tom kingi oo ah magaca shakhsiga uu dili doono sidoo kale waa mid ka mid a magacyadii uu dambi baaradda u sheegay mo isla xilligaa tom kingi waxa uu joogaa madxaf waxaa dhinac uga soo muuqanaya dilaagu waxa uu tom kingi ka codsanayaa inuu la dagaalamo markii ay iska hor yimaadaan tom kingi waxa uu arkayaa in dilaaga uu wato kaba aad u adag kuwaasi oo qofka ka dhigaya mid miisaaman waxay sidaa ahaataba dilaagu waxa uu la dagaalamayaa tom kingi muddo markii ay dagaalamayeen kadibna waxa uu ka tegayaa goobta ka hor inta uusan meydkii duldhigin shimbirtii dhinaca kale dambi baaradii iyo caawiyaheedii waxay ogaanayaan xogta 7dii qof ee uu mo u sheegay sidoo kale waxay ogaanayaan in 7 qofoodba ay qabtaan shaqooyin kala duwan sidoo kalena ay ku kala nool yihiin goobo kala duwan intaa kadib dambi baaradii haddana waxay ogaanaysaa in mo uu ahaa macallin dhanka feerka ah brofilkiisana ay ku xiran yihiin dad badan oo aad u jeclaa ka hor inta aan la xirin balse waxyar kadib sikadiisa booliskii waxaa soo gaarayay dilka tom kingi taasi oo keentay in dambi baaradii ay aad ula yaabtay siduu uu mo u sheegay dilaaga hadafkiisa subaxii xigay dambi baaradii waxay mo siinaysaa fasax kooban oo bannaanka ah si uu ula shaqeeyay iyada ugu horeenba waxa uu bilaabayaa shaqadiisii waxa uu dambi baaradii u sheegayaa in dilaagu uu dilka u geysan doono hadba dadka siday ugu kala fiican yihiin dagaalka maadaama markii koowaad uu dilay nin feerka aad ugu fiican kadibna uu ku xijiyey tom kingi oo ahaa ninka ugu sareeya ciyaarta king boxing sidaas oo ay tahayna mo markaan waxa uu istusiyey in dilka xiga uu noqon doono ama uu ku wajahan yahay wong shi kaasi oo ah khabiir dhanka feerka subaxii xigayna boolisku waxay imaanayaan goob loogu sheegay inuu yaalo dhaawac balse markii ay yimaadeen waa wong shi oo ay naftu ka baxday sidii caadiga ahaydna gacantiisu waxay ku arkayaan shimbirtii mo oo meesha taagan sikadiis waxa uu arkayaa yusaw kaasi oo meel kor saaran aadna u dhoola cadaynaya markiiba waxaa galaya tuhun ah inuu yahay isaga dilaaga uu soo ceersanayaa si
si uu u qabto, halka dembi baaradii iyo askartii kalena ay caawinayaan ilaa ugu dambeyn Yuusuf uu ka boodayo dabaq. Intaa kadibna Mo markan waxa uu soo aadayaa magaaladiisii si uu la kulmo xaaskiisa oo uusan muddo 3 sano arkin. Muddo markii ay waqti wada qaataan waxa uu gurigiisa ku dhex arkayaa shimbirtii, isla markiiba waxa uu xaaskiisa weydiinayaa halka uu ugu yimid. Waxay u sheegaysaa in bilo ka hor uu u keenay qof aysan garanaynin, kadibna uu u sheegay inuu siiyo Mo. Isla markiiba waxa uu go'aansanayaa inuu u tago taariikhyahanka magaalada si uu u weydiiyo asal ahaan waxa ay tahay shimbirtan. Isla xilligan waxaan aragnaa Yuusuf oo la jooga xaaskiisa balse ku dhacay xanuunka kasarka, isagana uu aad u saameynayo xaaladda xaaskiisa maadaama ay ahayd mid kaliya ay sidiisa ku qaabishay isaga, si uu dhibkaas iyo fikirkaasina isku ilowsiyo. habeen iyo maalin waxa uu sameeyaa trading. ugu dambeyn Yuusuf markan waxa uu arkayaa xaaskiisu ay naftu ka baxeedo. markan u soo laabanay sida caadiga ah, Mo iyo xaaskiisu markan waxay u imaanayaan taariikhyahanka. markii ay tusaan shimbirtu, taariikhyahanku waxa uu sheegayaa in sawir ahaan uu muujinayo shimbir lagu magacaabo Sanano, balse intii uusan hadal ka dhameynin oday agtooda fadhiyo oo maqlaya hadalkooda waxa uu sheegayaa in dilaaga lagu magacaabo Yuusuf. wuxuu shaaca ka qaadayaa in Yuusuf uu ku dhashay lagu aanan sinnayn, halka xaaska kaliya ee isaga dooratayna ay ka dhimatay, taasi oo isaga ku keentay warwar iyo fikir badan. wuxuuna ballan qaaday inuu noqon doono feeryahanka ugu fiican waddanka, inta ka soo hartayna uu dili doono. wuxuuna odayga u sheegay halka uu hadda joogo. isla markiiba Mo waxa uu wacayaa dembi baaradii isaga oo la wadaagaya xogtii oo idil. intaa kadibna dembi baaradii iyo koox boolis waxay imaanayaan halkii uu tilmaamay Mo, balse Yuusuf maba jooga goobtii. laakiin dembi baaradu waxay su'aal weydiinaysaa haweeney iska lahayd guriga. haweeneydu waxay dembi baaradu u sheegaysaa inaysan isaga xog badan ka haynin, balse maalinkii oo dhan uu sameeyo trading, sidoo kalena wejiga iyo jirkiisaba uu mariyo cusbo. Mo isla markiiba waxa uu dembi baarada u sheegayaa inay tahay farsamo hore loo adeegsan jiray si jirka uu u adkaado, awoodna u yeesho inuu u adkaysto dhaawacyada soo gaarayo. intaa kadib waxay arkayaan magacyo dad caan ah oo uu ku qoray darbiga gurigiisa, kuwaasi uu rabo inuu dilo. isla xilliga dilaaga markan waxa uu u socdaa inuu fuliyo qorshihiisii xigay, isagoo oo rabo inuu dilo markan Hong Hee. waxa uu marka hore u daandaasanayaa siduu ula dagaalami lahaa, taasi oo sababtay inay isdagaalaan aakhirkii. Yuusuf si ugu faa'iideysto fursadiisa waxa uu dilayaa Hong Hee, kadibna intuusan bixin waxa uu dul saarayaa shimbirtii. intaa kadib meydkii waxaa la geenayaa isbitaalka. muddo kadib dembi baaradii waxaa soo wacaya taliyaheedii, isagoo u sheegaya in gebi ahaanba ay kiiskan halkaasi ku xirto. sidoo kalena waxa uu sheegayaa in Mo uu iyadu wax ka qarinayo, maadaama intii uu ku jiray Mo xabsiga ay u timid waraaq uu u soo diray Yuusuf, balse uusan iyada la wadaagin. laakiin Mo waxa uu dembi baaradii loo ku qanciyay in waraaqada ay ku qorneyd kaliya inuu yahay qofka u dambeeyay ee uu soo weerari doono isaga, balse dembi baaradii log way ka shakinaysaa maadaama CC kamerada ay ka aragtay iyaga oo dhowr mar kulmaya. intaa kadibna habeenkii Mo waxa uu soo xasuusanayaa Yuusuf markii uu geysanayay dilkii u horeeyay. waxa uu u soo diray waraaqad uu u sheegayay inuu daawado TV-ga. intaa kadibna boolisku markan waxay ogaanayaan goobta uu joogo dilaaga, isla markiiba waxay imaanayaan goobta, balse nasiib xumo isaga maba joogo. laakiin dembi baaradii log iyo askarteediiba waxay baarayaan gurigii oo idil si ay u helaan xogo kale. cabaar markii ay baarayeen ma helayaan wax xog ah, marka laga reebo in Yuusuf xaaskiisu ay ku aadan tahay dhalashadeeda, taasi ay ku xaqiiqsadeen inuu isagu ku soo laaban doono goobta. waxay kooxdeeda qaar ka diraysaa goobta, halka kuwa kalena ay u qarinayso si hoose, si hadhow uu u maleeyay in goobta ay ka tageen iyaga oo idil. muddo kadib sidii ay doonayeenba, Yuusuf markan waxa uu soo muuqanayaa isaga oo saaran doon. intii uu soo socday guriga waxa uu galayaa xasuus markii xaaskiisu nafta ka baxaysay. intaa kadib markii uu soo dhawaado guriga waxa uu maqlayaa iyada oo aad u qaalinaya. waxaa galaya shaki ah in goobtan ay wax ka jiraan, isla markiiba uu kala wareegayaa uuna ka cararayaa goobta. intaa kadib dembi baaradii markan waxay arkaysaa muuqaalo kale oo ay duubtay CC kamerada, kuwaasi oo ah Mo oo la kulmaya Yuusuf, halkii dembi baariyaashii kalena ay u sheegayaan inay qabato Mo. isla markiiba waxay ku qabanaysaa biskoolad, waxayna u sheegaysaa in Yuusuf uu wadaag la ahaa dilalka uu geysanayay, balse Mo waxa uu hal mar ka dafayaa biskooladeedii, kadibna waxa uu orod uga baxayaa qolka si uu u raadiyo Yuusuf. isla xilliga xaaskii Mo waxay gudaha gurigeeda ku arkaysaa Yuusuf. waxa dhex maraya dagaal ilaa cabaar ay iska difaacdo, balse aakhirkii waxa uu gaarsiinayaa dhaawac. wax yar kadib waxaa imaanaya goobta Mo. waxa uu arkayaa xaaskiisa oo dhulka taala. waxa uu dalbanayaa caawinaad, laakiin waxa uu banaanka ka arkayaa shanqar. isla markiiba waxa uu ogaanayaa in Yuusuf uu joogo banaanka. si hadal la'aana uu ku soo boodaya, waxaana labadoodii dhex maraya dagaal ilaa ay ku wada dhacaan webiga, balse kalama harin. weli waxa ay ku dagaalamayaan biyaha dhexdooda ilaa Yuusuf markan uu helay fursad uu ku cararo. waxa uu raacayaa doon, balse nasiib xumo dembi baaradii oo wadatay doon kale waxay ku dhufanaysaa doontiisa, taa oo haddana keentay in Yuusuf uu u suuro gashay inuu mar kale ka cararo kana qarsoomo. muddo kadibna Mo markan waxa uu mar kale helayaa Yuusuf. waxa dhex maraya dagaal kulul oo isku adeegsadeen ulal. si kadiisa Yuusuf waxa uu lugta ka qabanayaa Mo, taasi oo sababtay inuu hoosgalo baabuur xamuul ah, balse Yuusuf uu ka faa'iideysanayay fursadda. waxa uu ku soo boodayaa Mo isaga oo raba inuu dilo kana takhaluso. nasiib wanaagsi waxa goobta imaanaysa dembi baaradii log. waxay xabad ku dhufanaysaa Yuusuf ilaa ay naftu ka baxday. 3 bilood kadib markii ay soo gabagabeeyeen howlgalka, log waxay Mo u sheegaysaa in xilligan wixii ka dambeeyay uu yahay xor. ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhamaanayaa Mo oo la sawiran xaaskiisa iyo qayb ka mid ah ardayda iskuulkiisa dhigata ee Kung Fu. dhacdada
muuqaalada filimkan xiisaha leh waxaa la sii daayay 2014. haddaba daawade waxaan rajeynayaa inaad waqti qurux badan qaadatay aadna ku riyaaqday daawashada muuqaalka, balse marka laga guddoom dhambaal hambaleeda ciida ah ciid wanaagsan dhammaan waxaan ku rajeynayaa waqti qurux badan iyo nasiib wacan.